wixii la oran lahaa madaxweynaha yidhi annaga waxa weeye waa ayidana waxa weeye saddex qodob baa meesha yaal mid waxa weeye waa cudurkan in badan baa laga hadlayay suuqa Hargeysa haddaad martana sidii baa la soo dul saaran yahay haddaynan dee qof walba naftiisa ilaalinna hadal wax la yidhi ma ilaalin karayo intaana waa laga hadlayay guddiyaha loo sameeyey waxa laga hadlayay waxa weeye kala fogaada haysa salaamina Soomaalidina qof walba gacantuu soo taagaya dabeedna waad xishoonaysaa nin weyn oo oday oo gacan kuu soo taagay aad iska dhibatid kole waad salaamaysaa waxa weeye midda labaad ee aynaan dilayno ku caalhelayna waxa weeye haddii la qof baa xanuunsanaya waa lagu yaacaya imka odayaasha Ingiriiska jooga waxa laayay waxa weeye marka la yaa hebel baa xanuunsanaya qaraabadii oo dhan baa guriga ugu tagaysa dee wixii u tagayna waa qaadayaan meeshuu taabtay taabanayaan waxaan xukuumaddana u soo jeedinaynaa waxa weeye khasab inuu yimaado oo dadkan hadday masjiddan ay ninka qayilaya laantiis ha qaato qolkiisa ha isku xidho laakiin haddii dee masjidada sidii u furan yihiin oo suuqii sidii loo tuban yahay waxay tegaysaa in awood lagu isticmaalo oo waad aragteen dhulka kale oo ul baa lagu masaajid ul lagaga soo saaraya dadkii waad aragteen saxaafadduna aad bay uga qayb qaadatay iminkana waxa ka sii qayb qaateen odayaashan iyo dadkan ay waraysanayaan tviyaduna ha ku bedeleen in waanada in laga waaniyo dadka miyiga ha loo baxo marka iyada waxaan oran lahaa dee guddidaa inoo aynu samaysanay talooyinkooda ha la raaco cudurkana cid ma yaqaan lacag buu leeyahay ma yaqaan awood buu leeyahay ma yaqaan waa reer hebel oo kuma dhaco hadduu reer hebel kuma dhaco ma yaqaan oo haddii dee looran lahaa qolada ku horee kaa yeeli maayo maraykan baa isla ugu xoog weeyo isagoo ku bilaabo cidna dhaafi maayo marka waanada iyo talada guddiyaasha la sameeyey ha loo dhega nuglaado qodobka labaad waxa weeye waa kan xamar waxaa soo meediyaha waxaa ku jirta prime ministerka xasan khayre inuu yidhi anaa lay xil saaray somaliland wuxuu kaloo ku daray annaga isku qolaanuna farmaajo necab yihiin annagu isku qolaanuna anaa soo dhammaynaya rag badan oo innaga ahina waa u raariciyeen waxaasna wax ka jira ma jiraan xukuumadda talada ugu horeysa xukuumaddaa leh wixii madax dhaqameeda iyo wixii aqoon-yahana marka ay timaado waktigeedu wixii tale ay ku leeyihiin dee waa lagala tashanayaa maxaynu yeellaa waa arrin masiiriya oo dadka oo dhan ka dhaxaysa waxa weeye qof kastoo wax la moodo talada waa la weydiinaya laakiin dee madax dhaqameedka inay yidhaahaan u qaateen in la yaacayo oo meesha loo kala horeynayo waxa weeye somalilan tegi mayso shir ayan ogeyn waxa ka soo baxayana la tegi maayo marka la tegayana dee waa xukuumadda aynoo sheegaysa odhanaysaa waxaasaa jiray aynu waxaa yeelo wadatashi baa lagu tegayaa iska orod maaha qolooyinka dee yaacayaana madax dhaqameedyaduna waa madax dhaqameedyadii talay leeyihiin waa lagala tashanaya marka waktigeedu yimaado laakiin iyagu inay hadda waddo sii jeexaan maaha waxay ahayd inay tuulooyinka tagaan xaafadihii tagaan raggii ay wakiilka ahaayeen u tagaan inay ka waaniyaan cudurkan sidii looga badbaadi lahaa waxayna ila tahay waxa weeye inaynu iska dhigno wixii kale ama siyaasad ha noqoto ama mid kale ha noqotee inaynu u jeesano sidii dadkeenna aynu u badbaadin lahayd oo miyiga loo tegi lahaa saxaafaddu miyiga u tegi lahayd oo miyiga loo sheegi lahaa ilaa qofka markuu magaalada ka tago miyigiibuu tegaya miyigii wax alla waxay haystaan dee wax xumad jabin xitaa ma haystaan marka xooggeenna iyo midnimadeenna aan saaro sidii dadkaa loo badbaadin lahaa wixii markaynu ilaahay ina ka dulqaado wixii dambe aynu soo noqon lahayna dee waa meesheeda midda labaad saddexaad waxaa weeye tan golaha baarlamaanka wakiilada laba xubnood bay soo celiyeen cod bay u qaadeen labada xubnood waa soo celiyeen iyagoo aan cidna ku xumaynayn cidna qofna ayan dan shaksiga ka lahayn waxay loo ekaanaatay labada xubnood inay celiyaan xisbiyada labada xisbiya mucaaradka iyo madaxweynuhuna waxay isla gashay labada xubnood baanu soo celinaynaa annagu wixii sharciga
wixii shuruuca waa shuruuc waxa weeye golaho fasax buu ku jiraa maalintii dhaweydna wuxuu ku soo noqday isagoo waxaan u fasaxnay waxay ahayd waxaan soconaya inaanu ka bada 70 jir miidhan baanu nahay dad badanina waa habaarayaanoo doonaya golaha inay soo galaan madaxweynahaanu qaadi kari weyne maalintii dhaweyd waxaanu aan iska dhimanne aynu isu nimaadno waa nagii fadhi aan caadi ahayn isugu yimi goluhuna xor weeye waa ka madax bannaan yahay laakiin dee waxaanu tixgelinaynaa xusbiyada madaxweynaha talada odayaasha baanu tixgelinaynaa waxa weeye goluhu markuu fasaxa ka soo noqdo haddii labada cusbaan la keenayo iyo haddii laba cusub la keenayo iyo haddii labadii hore lagu soo celiyo golaha wakiiladu diyaar bay u yihiin in la soo celiyo labada xubnood la keeno komishankuna inoo dhammaystirmo doorashadiina dee wixii balqabanaya iyagay jirtaaye aynu horta komishankii dhammaysano aynuna isugu tagno sidii aynu dadka u waanin lahayn miyigana loo baxo saxaafadduna joojiso waxyawan kale ay waraysanayaan oo ay dadka wacyigeliyaan waayo iyaga aad baa loo maqlayaa tviyada xukuumadduna xoog inay saarto tviyada qaranka in la maalgeliyo si ay hawsha u wadaan oo aynu wax kale iska dhigno aynu badbaadada aynu ku dadaalno dadkuna qof waliba walaalkii iyo aabihii dhallinyaraduna miyiga ha iska aado miyiga labadaas caafimaad fiicane waxa weeye culayska magaalooyinka hala kala qaado marka aad iyo aad baa saxaafadda ugu mahadnaqayaa waad salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu